asalaamu calaykum kulanti wanaagsan khiyaaray mudanayaal iyo marwooyin ummadda soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waa mar kale iyo ha noolaato aniguna waa yaanla xuseen cabdi waxaan qaybtan oo ah tusmo gaaban aan uga hadli doonaa isbedelada dalka ka dhacay gaar ahaana marka laga hadlo xaaladaha nabadgelyada dalka waxaan si gooni uga hadli doonaa gobolada jubbooyinka oo sida aad la socotaan laga soo bilaabo sanadkii 2011 bartamihiisii ama bishii Oktoobar ay galeen ciidamada shisheeye ee ka socday wadanka Kenya kuwaasi oo marka ay tageen deegaankaasi gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo dhul u dhow aan dhaafin halkaasi muddo inta la eegna halkaasi ku sugnaa oo qiyaastii hadda noqonaysa marka la eego muddo 6 sano ama 7 sano ku sii socota ka qayb gal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato si aad u hesho muuqaalo cusub fadlan subscriber noqo waxaa fursad aan u helay inaan helo oo aan la kulmo Maxamed Xuseen Cadow oo aqoonyahan deegaankaasi ka soo jeeda waxaana uu muddo dheer baaritaan ku hayay waxyaabaha keenaya in ilaa iyo hadda uusan guuleysan maamulkaasi oo aansan dadkii deegaanka ku noolaa aysan ku wada qanacsanayn maxamed ku soo dhawaad noolaato waad mahadsantahay ayaale fursadan qaaliga aad siisay oo aan rabno inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto dareenkeeda maxamed marka waa mahadsantahay waxaan rabaa xaaladaha inkastoo wadanka oo dhan qasan yahay oo mushkilado badan ay ka jiraan gaar ahaan markii hadda 2011 ay ciidamada Kenya soo galeen Soomaaliya gaar ahaan gobolada Jubbooyinka ilaa hadda maxaa isbedelay oo la sheegi kara ayaan le waxa horta habboon in aan waqtiga aan dib ugu noqono is xasuusino Soomaalida waxa laga faa'iideystaa mar walba oo kala guur siyaasadeed uu jiro xilligii ay ciidamada Kenya iyo Soomaaliya soo galeen xuduudeed soo gudbeen waxay ahayd 16 Oktoobar maalin axad ah ayadoo ay ka harsan tahay doorashada 9 bilood waxaan wada ogsoonahay haddii aan xusuusteena dib u celino madaxweynihii waqtigaasi ay xukumayay dowladda Soomaaliya Sheekh Shariif Axmed inuu arintaasi aad uga soo horjeestay waxaana nasiib darro noqotay in ra'iisul wasaarihiisa Cabdiwali Cabdikaas uu yiri waxba kama qabno waxaa dhacday Sheekh Shariif waqti yar oo kooban gudaheeda maadaama uu galayay in mar labaad la soo doorto inuu ka tanaasulo kormaashihii oo marka hore uu ka tanaasulay sababta ayadoo uu pressure uga yimid ama cadaadis uga yimid dowladda Kenya iyo Ethiopia aan la socono waxyaabo badan baa u baahan inaan fahanno haddii laga hadlo in waqtigaasi madaxweynuhu diiday Sheekh Shariif in ciidamada Kenya ay dalka soo galaan oo ay soo galeen ma diidi kariyo marka runta laga hadlo runtii wax walba oo la suubiyo waxa loo raadiyaa legitimacy qalad kasta oo la suubiyo marka asaga waxa laga doonayaa inuu macna legitimacy ama uu sharciyeeyo oo xalaal ka dhigo duulitaankan xalaal ka dhigo si looga gado dadka Soomaaliyeed iyo adduunka intiisa kale mar walba waa loo baahan yahay arinta aan dib ugu noqono ayaan le maadaama aan ku iri mar walba waxa laga faa'iideystaa xilliga kala guurka dowladda Xasan Sheekh ayaa timid ayadoo caga badan ku taagnayn maamulkii marka ay Ethiopia iyo Kenya keeneen asagana wuxuu ka dhigay mid xalaal ah oo lagu sharciyeeyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka deganba marka waqtigaas mar walba laga faa'iideystaa marka hore dowladda Xasan Sheekh Maxamuud aad uga soo horjeeday dhismaha maamulkaasi gabi ahaanba oo uu Xasan Sheekh yiri mataqaana dadkana waa aqaana deegaanka sida loogu nool yahayna waa naqaana waa in dhulka laga soo bilaabo deegaan laga soo bilaabo maamul dhismahaas maxaa ku qasbay marka inuu aqbalo dowladdiisa curtan ahayd mar walbana uu aaminsanay maadaama ay dowladaha Soomaaliya soo maray dan ay mar walba ay jiritaankooda ay qalqiil galiyaan cabsi galiyaan dowladaha dariska ah cabsi uu qaba in dowladdiisa aysan burburin darteed ayuu wuxuu ku badashay inuu aqbalo haddii aan heshiiska Addis Ababa uu Faarax Cabdiqaadir oo mas'uulka uga ahaa ay soo jiri lahayn maanta dowlad goboleedyada Soomaaliya kama mid ahaan lahayn legitimate la sii darteed waaya dadka deegaanka say u arkaan marka runtii waa inaan fiirinaa horta ujeedooyinka ninkani dowladihii keensaday taa unbaa muhiim ah macnaha inaan horta fahanno markaan wax fahanno wax waan ka qaban karnaa tusaale dowladda Kenya laba ujeedo ayay ka lahayd in uu Axmed Madoobe meesha la geeyo labada waxay tahay sidaan la socono dowladda Kenya wadamadan la yiraahdo coastiga iyo north eastiga
dad muslimiin ayaa degan oo runtii cadaalad darro kala kulma dowladda Kenya badankooda waxa dhalinyaradii wadanka deegaanadaas deganaa Kenya waxay imaan jireen Kismaayo oo lagu tababari jiray shabaabka sidii ayaga aaminsan yihiin hadhow marka dad tababaran inay wadankooda ku noqdaan oo ay u horseedaan inay ka gooyaan wadanka Kenya waa qodobka labaad oo annaga naqoseeyo Soomaali ahaan wuxuu ahaa waxa jira in la socotid heshiis afgarasho oo arinta badda ah oo Soomaaliya iyo Kenya ah maadaama bad ilaa iyo 1,000 kilometer square ah oo deegaanka ah oo xeebta Kismaayo korkeeda ah in laga helay shidaal iyo gaasbo waxaa jirta ciido is afgarasho ah in dib loo furo arintii badda Soomaaliya oo ilaa 1963 ay dhibaato ka taagneed oo Soomaaliya loo xukmiyay in dib loo furo dowladii Shariif ayaa 2009 ay ka wada hadleen arintaasi marka waxa ka hor yimid 8 bishii October 2011 baarlamaanka ayaa laaday uu yiri wax la furi karo ma jirto heshiisyadaasna raalli kama nihiin ciidamada Kenya waxay soo galeen 16 8 baarlamaanka ayaa 6 qodob arintaasi ka soo saaray inaan arintaas la furi karin aan wada hadal laga gali karin badaha iyo hawada Soomaaliya Toobina laba ujeedada ay kala had waa muhiim in dadka Soomaaliyeed fahmaan midda koowaad waxay ahayd in Ethiopia waa la socotaa in jabhadii ONLF ay laba loo kala jabiyay qaarna heshiis qaateen qaarna ay diideen qaarkii diiday ayay istiraatiijiye waxa loo dejiyay in Axmed Madoobe loo isticmaalo iyadoo lagu baabiyo haddaad fiiriso ciidanka Axmed Madoobe ee hadda Jubbooyinka u jooga 100% waa dadka yimid ONLF arinta kale oo laga lahay waxay ahayd dadka shacabka taageersanaan jiray ONLF ee dibadda jooga dhaqaalaha u aruurin jiray ayagana in laga wareejiyo focuska loogu wareejiyo arintan labadii arinba waa lagu guuleystay أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي وحنا قينين وهنين مجاهدة وحبشيدة لدق على مي حلقي محاكمته أي جرتي راوع مي إثيوبيا اللي وحري مدكو حرنا دولة الشيخ شريف أي سوديس محاكين كرين علاقات انت عليك ساد شيء يسول سميستو حبشيدة وقارهان إثيوبيا ولا سميستو وقارهان مركا لقى عدو دادكي حرنمada doonay oo qabiilkiisa u badnaa iyo dadkii Soomaaliyeed dhulka ku noolaa oo mabda Soomaaliyeed oo guuda inuu ka hor yimaado oo waliba loo kaashado inuu burburiyo mabdaas dadka Soomaaliya iyo Afrikaanka intooda badan dantooda qaaska ay waxay ka hormariyaan danta guud ee ummadda ka dhaxaysa haddii loo ogolaado inuu ninkan madax noqdo bar walba wuxuu ka darbida xataa diinta ayay bedeshaan iska dadaabe dhul la soo weeraray waxyaabaha aad ka hadashay waxaa ka mid ahayd Axmed Madoobe oo shalay la dagaalamaya xabashida oo dalka ka saaray oo dagaalkii galay oo u dhibaatoobay oo lagu soo xiray Ethiopia oo ciidan shisheeye wadanka soo galay ka dagaalamay inuu Kenya soo galiyo soo horkaco ama taa waxay cadeynaysaa in dadka Axmed Madoobe aad u yaqaano wixii aniga aan ka maqli jiray xitaa markuu maxkamadaha haystay in uu ahaa nin lagu abuurtay meesha si uu u kala dhantaalo xooga maxkamadaynta ee markaas jirtay taasina tusaale waxaa noogu cad in 2 sano gudahooda xabsi kuma jirin in la daaweeyo meesha laga qaaday dhaawiciisa in laga qaaday dagaalkii laga qaaday oo la daaweeyay oo la soo daayay nin cadow ku ah Ethiopia ma soo dayn lahayn dhaawiciisna ma daaweyn lahayn way diri lahayd laakiin waxaan ogahay aniga shirka Djibouti dadka laga wada hadlay in la soo daayo oo dawladda Sheekh Shariif markay dhalanaysay laga wada hadlay oo leeyahay dadka Soomaaliyada xabashidu Ethiopia haysataa ee la soo daayo ku jira Axmed Madoobe waliba dadka ugu muhiimsanayo markaas Soomaaliya qaran ahaan muhiim u ahaa ayuu ku jira la soo daayo ayaan lo dib u noqono mar alla markii Axmed Madoobe la soo daayay bila kumaysan qaadan wuu ka baxay baarlamaankii soo daayay wuu ka baxay isla markii wuxuu suubiyay ciidankii loo asaasay in dawladda Soomaaliya loogu tababaro Kenya isaga iyo Ganiba Professor Gandhi inay la wareegaan oo ay programkan fuliyaan taasi markaa waxay ku tusaysaa waxa laga yaabaa 2 sano oo xabsiga ku jiray in la bedelay برنامج مبدئي وهو أمسنا لقى قاضي لقى بدلي وتن لوتوس إني وفولي وونو أقبل إن كونديشن ولا سوى قلنا لقى يابا كليس بما هذا كم مبادئ دي الويق إن كلا بتي مدحوينه يابا شيخ شريفة كم ده رج بدنا كم ده رجي لدق على ماي أو مركز دم الدولة الصورة عيوننا كم ده
qaar badan waa dhinteen qaarna waa nool yihiin laakiin waxa isweydiin mudan axmed madoobe aad weli ma la shaqaysa maya aniga lamaan shaqayn maya laakiin aqoonta aad ka sheegayso waa aqoonta guud aad ka haysata maahane aqoon aad toos aad u taqaana ma jirto maya waa aqoon qofku hadduu mas-uul yahay shaksi ahaan inaa u taqaanid muhiim maaha waxa maamulkiisa iyo siduu sharciyada dadku ugu fuliyo ayaa muhiima ayaa ka turjumaysa hadda waddankan annaga aan joogno dadka ra-iisul wasaaraha waddankani doorasho ayaa soo dhow muhiimadda waxay ku dooranayaan ay ninka kale uga doorbidayaan waxay tahay siyaasadda uu rabo inuu dadka ku dhaqo marka axmed madoobe siyaasadda uu deegaanku ku dhaqay iyo macnaha mabda'a iska badbedelidda iyo wuxuu u dhammaaday inuu u shaqeeyo dana shisheeyo cid ay maanta indhihiisa ay ka qarsoon tahay ma jirto waxyaabaha hadda soomaalidu ay aada u laabkacday waxaa ka mid ah inkastoo axmed madoobe qof qarin kara aysan jirin in ay dhaawacday arrintan ku saabsan soo horkicitaanka ciidamada shisheeye ee Kenya gaar ahaan inuu dalka soo galiyay oo weligii taariikhda taas ay ku jiri doonto haddana marka hadda loo fiiriyo madaxda Soomaaliya joogta ee gobolada ka taliya ee maamul goboleedyada sheegta iyo xitaa dowladda dhexe wuxuu ka mid yahay dadka mabaadi ahaan ay Soomaalinimada ka dhadhamayso oo ka hadla mataqaana in afkii Soomaaliga lagu hadlo marka la shirayo in shir uu ku qabtay magaalada Kismaayo uu yiri calamada kale oo dhan hala dejiyo calanka qaranka hala saaro marka maxaa is leedahay ninkaas mara calan oo meel la saaro laga dejiyo waxaa ka muhiimsan taangiyada magaalada dhex yaalla iyo askarta ajnabiga ah ee gumaanaysa ummadda meesha degan haddii uu axmed madoobe nin daacad yahay ciidamada Ethiopia ee Kenya ee deegaanka jooga oo ku cadaadinayo ee asaga xukunka ku haya ha ka saaro marka aniga waxaan u aqoonsan karaa inuu yahay nin wadani ah laakiin xaalada keenayso dad la dagaalamay Soomaaliya nimanka shabaabka la yiraahdo dagaal wado dad kale to laga yaabo qabaa'il hubeysan oo diidan maamulkiisa inay jiraan ma isleedahay dad duruufa gelisay inuu kaashado laakiin in asaga waddankaaga inaad cadow u adeegsato mar walba waxaa ka fiican inaad dad Soomaali u adeegsato farqiga u dhaxeeya shabaab iyo nimankan ciidamada Kenya iyo Uganda macnaha Ethiopia way ka gedisan tahay macnaha wax isla mid ah ma ganacsigan dhuxusha ee xaaraanta ah ee la leeyahay si fiican u meesha uga socdaa maxaad ka sheegi kartaa oo horena warbixinada looga soo saaray ayaalna horta markaad fiiriso haddii maanta xoolaha fursad la siin lahaa inay hal jeer ay hadlaan waxa ugu horeeya inkaari lahayn waxay noqon lahayd dekada Kismaayo maxaa yeelay deegaankaasi waa deegaanka ugu badan Soomaaliya ee dhuxusha laga dhoofiyo oo geedaha laga jiro bishii waxaa laga yaabaa in 1 milyan oo case laga dhoofiyo meesha isla markaana in lacagta in dib uguma noqotee mushaar waxa looga dhigaa ciidanka ajnabiga ee waddanka jooga ayaa mushaar loogu dhigaa marka taa waxay keentay in qabiilo badan oo Soomaali ah maadaama uu daaqi marqaadku meelaha ka dhamaado inay u soo guuraan qabiil kale meelahana uu dagaal ka dhaco abaaraha waxyaabaha keenaya roob la'aanta waxa ka keenayso dhulka haddii kaynta laga jiro roobabku way ku yaraanayaan marka dhibaatadaasi way deegaanka way ka jirtaa ogaantayda ma maqal dagaal qabiil uu ku qaaday hadda deegaanka intuu joogay oo leeyahay qabiil uu weerar ku qaaday oo qabiil ahaan dagaal ahliga meesha uga socdaa oo axmed madoobe la dagaalamayo ma maqal maxaad ka wadaa marka dad u maquuniyo xoog u adeegsaday axmed madoobe sidaa la socotaba waxaa meesha keenay waa ciidan laba dowladood oo darisna leh oo mar walba ka shaqeynaya dhibaatadeena Soomaaliya inaysan dowlad noqon dad midaysan ay noqon wuxuu haddaad fiiriso markuu soo galay magaalada week walba waa 60 qof ama 70 qof reportada waa ka arki kartaa asagu uma adeegsanayo qabiil ayaan la dagaalamay wuxuu u adeegsadaa shabaabka ayaan la dagaalamay kaas ayaa ah kan adduunka ka gadmayo macnaha qabiilkii aniga haddaan axmed madoobe caawa ka soo horjeesto macnaheeda automatically ra'yigayga iyo maamul xumadiisa iyo arxan daradiisa haddaan ka dacwoodo aan iraahdo waxa oo lagu istaanbadaynaya waxaa noqonaya shabaab ayuu dilay ayaa maqlaysa ee ma dhahaysa qabiilkaas uu ka soo horjeedo dilay ma maqlaysid xagee ka dhacay dagaaladaas dagaalka wuxuu ka dhacay macnaha inaas fahnaa fiicna
dagaalada aan kuu sheegay aniga wuxuu ahaa kii hore dagaalada dadka deegaanka waxaan ku iri hadday dhirta la jaraan ku iri xoololeydu way soo guraysaa dhul kale u imaanaysaa oo deegaan kale dhibaato meesha ka dhacdaan ku dhahay maadaama dhirta xaalinteeda idan ku jirinaan ku iri inaad fahmin taas waa tii weligeed ba dhici jirtay Soomaalidu isku diri jirtay laakiin Axmed Madoobe ma hub isugu dhiibay maya taa aniga kuma eedeynay waxaan ka wadaa dhirta la gurayo darteed macnaha waxay keenaysaa ku iri hataa dadkii dariska ahaa in iska hor keentaan ku iri waya dhuxusha marka dhoofinta la dhoofiyey kullayba waddamaa loo iibgeeyaa dadka ganacsatada ah ku lugta leh ee arrimahan ka shaqeeya ma la yaqaana runtii dadkan ganacsatada dhuxusha ka beecmis jiro ciidan ayay leeyihiin waayo waxay og yihiin haddii ay deegaanka tagaan dhuxul kama soo guri karaan ciidanka dartiis ayaa macnaha dadku lagu cabsi geliyaa si dhuxushaasi loo soo gurto niman waxaa jiro 2 nin oo la yiraahdo boqoradii dhuxusha oo Cumaan iyo Dubai degan oo runtii ka beecmis jiro kayskii dhuxul ah waxaa laga qaadaa dekada $2 marka waad dareemi kartaa kayskii sokorna ee soo gala waxaa laga qaadaa $2 international community-gu waagii ay shabaabka Kismaayo joogeen income-kooda way ka hadli jireen oo waxay dhihi jireen ilaa 3 million 4 million oo dollar ayaa dekada ka soo gasho dhuxusha dhoofinteeda iyo wax yimaado ilaa adiga hadda ma aragta warbixin laga soo qoray in income-ka Axmed Madoobe ka soo kala dekada laga hadlayo ma aragta laakiin warbixinta ugu dambaysa soo saaray malaayiin dollar in laga helo ayaa la sheegay marka waxa isweydiin Kenya lagu eedeeyay ciidamada Kenya lagu eedeeyay inay qaataan lacagtaas marka khayraadkii yaraa ee magaalada Kismaayo ka jiray miyaysan ahayn dadkii in looga faa'iiday isbitaal kaliya magaalada Kismaayo ku yaala 20 sariir xitaa ma taalo iskuulaad ma laha wadooyin ma laha lacagtii khayraadka wadanka ka soo baxay oo dekada ka soo baxay miyaysan ahayn in bulshada horumarka looga soo biyo miyay tahay in lacagtaasi ciidanka Kenyaanka iyo Etoobiyaanka la siiyo oo ummadii Soomaaliyeed lagu dhibaatay maxamed waxa isweydiin mudan maxaa maamulkan ujeedadiisu ma inuu Kismaayo ku ekaadaa oo dekadaas laga bayac mushtaraa maxaa ka hortaagan maamulkan inuu deegaanada kala gaaro aniga waxaan hore kuugu sheegay waxaan ku iri ninkani fikradiisa kuma imaanin qabsashada fikrada ee 2 dawladood daris leeyahay ayuu ku yimid waa inuu fuliyaa maxay tahay wataan isku soo sheegnay arrinta badda Soomaaliya khayraadka laga helay iyo jabadaha ku kacsan Soomaaliya galbeed ee degan in la kala jibiyo labadiina maanta wuu ku guuleystay xitaa aniga waxaan hadda ka baqayaa maadaama ninkan laga dhigay legitimate laga dhigay oo dawlad goboleed la siiyay bari in la siiyo awood dastuureed oo uu ku saxiixi karo khayraadka baddaas 1000 kilomitir square-ka ah oo dawladda Kenya u saxiixi karo waan ognahay daciifnimada ka jirta dawladda Soomaaliyeed inay waxba kaba qaban karin waxaana tusaale noogu filan asigoon dawladda Shariifka raalli ka ahayn inuu ciidanka soo geliyo marka maxaa diidaya haddii dastuuri ahaan loogu ogolaado inuu u saxiixo dawladda Kenya badda maxaa diidaya hadda wadada badaha iyo wixii la rabo maamul goboleedyada kaleba dad kale ma tashtaan way saxiixaan laakiin waxaan ku gabagabeynayaa maxaad is leedahay marka runta laga hadlo hadda Axmed Madoobe waa nin Soomaali ah ciidamada wato hadday rabaan qabiilkiisa wada ahaadaan waa dad Soomaali ah dhulkan waa dhul Soomaaliyeed dadka degan waa dad Soomaali ah maxaad is leedahay caqli ka duwan wixii aan ku dhaqmi jirnay oo ahayd ninka xitaa haddii uu khayr iyo shar wuxuu wadaba laga fiiriyo yuu yahay aan waxba lagu gaarin ma is leedahay maanta waxaan u baahannahay caqli ka duwan wixii aan ahayn oo ah inaan is aqbalno is ogolaano haddaan nahay Soomaaliya runtii annaga Axmed Madoobe asalkiisa iyo isirkiisa ma diidanin waxaan diidanahay mashruuca ee 2 dawladeed ee shisheeye oo annaga cadow soo jireen inoo aha in uu u noqdo aalad asaga loo adeegsado ayaan diidanahay dhibaatada deegaanku ma aha dhibaato dadka deegaanku ku kooban waa dhibaato ummadda Soomaaliyeed dhan u taalo ama ha joogto wadanka gudihiisa Soomaaliya ama ha joogto wadamada macnaha ay Soomaalida ka maqan sida Soomaali galbeed oo aan arrinta on elefan ku sheegay xalkeedana wuxuu ka iman karaa culayskaas in iska qaadno dadka deegaanka kaliya ma aha ninkani program ama xal raadin dad Soomaaliyeed meesha uma joogo tusaale ayaa waxa kugu filan haddii Axmed Madoobe oo awood u leeyahay Kismaayo waa dhaafi laaya
taa marka waxaad cabir ayaad ka qaadan kartaa inuun awood lahayn ciidankii shalay Kismaayo u qabtay hadday go'aan ku gaaraan way ka baxayaan waxaan kuu sheegaa magaalada Jilib iyo Kismaayo 90 kilomitir ay isku jiraan hadduu Axmed cudud leeyahay wuu gaari lahaa shalay dadkii keenay unbaa haddana weli go'aan ku gaaray inay meesha aadaan mar walba marka waa nin ka shaqaynaya danahaas dana Soomaaliyeed kama shaqaynayo annaga isirhaan naguma soo horjeedno waxaad tiri mar kasta oo isbedel jiro Soomaalida waa loo tashtaa maxaad ka waday tusaale aniga laba tusaale hore ayaan kugu soo sheegay arinta wadanka cadawga lagu soo geliyay laba tusaale dambana waan kugu xijinayo waxaan ognahay xilliga dekada Berbera la saxiixay waa xilligii Xasan Sheekh ee doorashadiisa wax yar bil iyo 2 bilood ka harsan tahay tansiixigta waxay tahay in ayadana la saxiix heshiiskii Boosaaso markuu farmaajo dawladdiisa hal bil ay jirto mar walba ninka Soomaaliga ah aragtidiisa iyo aqligiisa ma fogo mar walba waxa ugu muhiim ah kursigaasi si ay u xajisan lahayd iyo sida kursigaasi ay ku heli lahayd marka ma difaacaan waxa mustaqbalka oo ummadda ka wada dhaxeeyo haddii qayreed ahaan lahayd iyo haddii siyaasad ahaan lahayd ma difaacaan waxay difaacaan kuraastooda iyo magaca uyaalka ay wadanka ay ku haystaan aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamed Xuseen Cadow aad baad mahadsan tahay Maxamed adaa mudanayaan ka qayb gal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato si aad u hesho muuqaalo cusub fadlan subscriber noqo si aan u ogaano tusmooyinka aad ka heshay like saar ama share leh oo si fudud ula wadaag saaxiibadaada baraha xiriirka bulshada wixii talo ama tusaale ah fadlan ha naga bakhaylin ee hoos noogu dhaaf mahadsanid